kulanti wacan asxaabay waxaa halkan idinku soo gudbinayaa barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono faa'iidooyinka uu leeyahay garka. Waxaan ka soo qaadanay ilaa iyo 10 qodob. Qodobka koowaad, garku waa sunne. Qodobka labaad, garku wuxuu muujiyaa qaangaarnimo. Qodobka saddexaad, garku wuxuu muujiyaa awood iyo mas'uuliyad inuu qofka leeyahay. Qodobka afaraad, garku wuxuu ka dhigaa in ragga kale ku xushmeeyaan, gaar ahaan kuwa aan garka lahayn. Qodobka shanaad, garku wuxuu muujiyaa caaqilnimo, maskax furnaan. Ragga garka leh faraha gacantooda ayay gacanta ku kala bixiyaan markay aad u fakirayaan ama arrin adag ka baarandegayaan, taasoo ka dhigaysa in ay aad u caqli badan yihiin una maskax furan yihiin. Kuwa aan garka lahayn dhabanka ayay gacanta saaraan, taasoo ka dhigaysa in ay yaaban yihiin. Qodobka lixaad, garku wuxuu muujiyaa dulqaad, koronnimo. Garka ma sahlana, waa inaad sabir badan u yeelataa cuncunka hore iyo xiridda badan si uu si fiican kugu soo baxo. Waana tan iminka aan aniguba sameeyo maadaama aan garka weyn la baxayo. Qodobka toddobaad, garku wuxuu ka dirayaa dhaxanta iyo barafka. Saynisyahann badan ayaa sheegay in ragga garka leh ay qabowga badan u adkaysi badan yihiin. Qodobka sideedaad, garku wuxuu qariyaa cillado badan sida weji dhuuban, haddaad leedahay nabaro yaryar, xagtin, finan iyo wixii la mid ah. Qodobka sagaalaad, garku waa caafimaad. Tani waa xaqiiq, waana wax daraasado badan isku raaceen, halkana aan lagu soo koobi karin. Qodobka ugu dambeeya ee 10aad, garku wuxuu leeyahay soo jiidasho. Haddii aad rabto in aad guursato ama xaas xiriir ragga idin dhex maro, waa in aad gar weyn la baxdaa. Sida laga soo xigtay saynisyahanno daraasaad ay sameeyeen cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Queensland Australia ayaa waxay ku sheegeen in xaasku ay soo jiidasho badan ka hesho ninka garka leh. Sidoo kale, in ninku leeyahay gar waxay inta badan dhaxal siisaa xiriir raaga oo xagga guurka ah. Soomaalina horey ayay u tiri, gabaray kun bay showrisaa, kan garka lehna way kala baxdaa. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa 10kii faa'iido ee aan kaga soo hadalnay garka. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.